maanta waa maalin kale oo weyn oo aan u dabaaldegayno hal sano guurida ka soo wareegatay howlgalka African Union ee Soomaaliya oo ahaan jiray AMISOM markii loo baxshay ATMIS oo ah in maaragta ay yihiin howlgal si transition ah u shaqeynayo hawshaasna ay Soomaali la wareegi doonto mustaqbalka dhow hadii Ilaahay yiraahdo 2024 xaqiiqdii walaalaheena intay dalkana la joogeen waxay maaragta noo hureen naftooda iyo maalkooda wax walba oo ay woodeen iyo maankooda taas oo xaqiiqdii aan uga mahadcelinayo dadka noogu deeqay wiilashooda iyo gabdhahooda oo guud ahaan African Union gaar ahaan dawladaha u soo diray halkan ciidamadooda sanadkan oo xaqiiqdii ahaa sanad aad u qiimo badan oo doorashooyin laga soo maaragta lagu jiray oo howlo adag oo la qabtay oo ay ugu horeyso nadiifinta khawaarijta waxay ATMIS ka geysatay kaalin mug leh oo aan dhihi karno waxa lagu gaaray si wada jira in la maaragta la wadaago xogaha in laga shaqeeyo arrimaha logistikada in xarumahoodii meelaha ay joogeen iyo guud ahaan ciidamadooda ay ku sugnaayeen ay ka qayb qaadanayeen operationada ka socday ee dalka sidaad la socotiin dalka waxa ka socda dagaal khawaarij lagu la dirirayo waxaana qayb ka ah mishinkan halkan joogo ee ATMIS waxaan rabnaa marka inaan uga mahadcelino kaalinta ay ka geysteen oo qiimaha badan oo xaqiiqdeena furnimada leh dalkeena Soomaaliya anaga iskale iyagu waxay noogu yimaadeen inay noo gargaaraan waxay mudan yihiin in loo mahadceliyo loogana mahadceliyo waxyaabaha ay qabteen muddadii ay halkan joogeen waxaan rabnaa hadii Ilaahay yiraahdo mustaqbalka dhow sidoo mishinka magaciisa yahayba in ay la wareegto dawladda Soomaaliyeed ciidamadeeda qaranka inay la wareegaan amniga guud ee dalka marka waxaan leeyahay sanad guur wanaagsan danjiraha iyo dhammaan ciidanka halkan jooga saraakiisha joogta civilianka halkan jooga qof walba oo ka tirsan xubinka ah ATMIS mishinkeeda waxaan leeyahay hambalyo waan guuleysanay hadii Ilaahay yiraahdo shaqo wanaagsan ayaa noo qabsoontay muddada aad joogteen muddada idin hartayna waxaan rajaynaynaa inaan maaragtay guulo waaweyn kale sii gaarno salaamu alaykum